aabihii ma haysto asaga. idan markaasuu ilaah yidhi yatiiman daa maqraba, maxaa ku xiga aw miskiinan daa matraba, maskiin bacajiif u saaxiib ah. daa matraba maxaa loo yidhi? ushiisii asagoo wato socdaa yuu kari waayey tallaabo markuu qaaday ta kale inuu qaado baahi daraaddeed. waayo wuxuu dhabarkiisa ku istaajin lahaa ma laha, ilajigii iyo awooddii wuxuu lahaabaa dhammaaday. markaasuu faniino dhulka ku dhacay. daa matraba, jiifkii uu jiifay bacaadka yuu ilaah yidhi ow miskiinan daa matraba, bacaadjiif u saaxiib ah. waa xikmadda ugu cajaa'ibta badan walaalayaal. waa arrinta la rabo markaan maqalno qof baa baahan, qof intuu meesha istaaga yidhaahda shalay maanan qabaynin, hadal yar ma aha walaalayaal, wax sahlan ma aha. idan xikmadaha soonkay ka mid tahay. intaa ka bacdi ramadaanka marka saa ilaahay noo geliyo oo khayrka iyo wanaagga ilaahayna gaarsiiyo oo ilaahay soonkiina waafajiyo, waxaa jira dad fara badan oo soonka laga dhaafaayo. intaanan u gelin shuruud baa jirta lagu soomo. shuruudda lagu soomo ko waa islaamnimo, qofka inuu islaam ahaado. gaal haddaad aragto meesha maqaayad wax ku cunaayo, war ka kaca meesha muxuu cunto dhaafaaba, ilahay ba ma aaminsana subxaana wa tacaala, ilaahayba maba rumaysna. marka saa darteed shardiga koowaad waa alislaam, qofki inuu islaam ahaado. gaal kuma jiro. maxaa soo haray? qofki inuu caaqil ahaado. ninka majnuunkaa kuma jiro. nin waalano meesha tufaax ku cunaya markaad aragto alla soon soo may, ilaah baa ka rafacay subxaana wa tacaala. qalinkii waaba laga kor qaaday, malaa'igtiis waxmaba qortaba ilaa uu fiq ka helo uu caafimaado. yaa soo haray waa qofka inuu ahaado qof buluuq ah, qaangaar. ciyaalka yaryarkaa kuma jiraan. ciyaalka yaryarkaa soon lagama rabo, laakiin waa la iska soomin karaa, way ka caada dhiganayaan. marka maanta inta la soomiyey subaxii, duurka markuu ooyo dhooy aniga intaa ka badan ma soomi karin, waa la siinayaa caanihiis, dhibaato kuma jiro. waayo beritil casri buu gaaraya soo maha, maalinta kale ilaa shantii buu gaaraya. maalin sidaa uu isaga furfurayo, maalinta kale maqribkiilaa laga aadaamo waa soomayaa, waa ictaad, waa looga caada dhigayaa keliya. laakiin soonku ma waajibo. intaa waa dadka soonka ku waajibaya. qofku hadduu xanuunsan yahay ama musaafir uu yahayna waa dadka la cafiyey. dumarka waxaa loo shardiyaa intaa ka badan, intaa wixii ka soo haray dhiigga xaydka iyo dhiigga nifaaska, waa laba dhiigood. waa laba dhiigood, dhiigga xaydka iyo dhiigga nifaaska. labada laguma soomo. labadaas mtaqaanaa dhiig waa dhiigga xaydka iyo dhiigga nifaaskee, labadaba waa ka mamnuuc inay ku soomaan. sababtu waxay tahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi alaysat ilmar'a, inantu sow ma aha hadday xaysho ama dhiigga nifaaska uu ku dhaco midaan soomin oo tukan buu dhahay nebiga. soonka way soo qadaynayaan, laakiin salaada ma la soo qadaynayo. xaaladda markay meeshaa marayso walaalayaal, oo arrinta ay heerkaa gaarsiisan tahay, intaa shuruudna qofka laga helo, soonkii baa u bilaabanaya, wuu soomayaa. waxaa jira soonka waxyaabo fara badan oo dhibaato aan u lahayn, waxyaabo soonka jebiya, waajibaad iyo axkaam intaba waa leeyahay. axkaamihii qayb ka mida baanu ku soo tilmaanno, dhalashadii iyo inay bisha dhalata iyo waxyaabahaasoo dhan axkaam loo baahan yahay. soonka marka maalintii la joogo, qofka waxaa ka mamnuuca cunitaanka iyo cabitaanka camdiga ah, kibirka loo sameeyo. adoo og baad wax cuntay, adoo og baad wax cabtay, labada waa mamnuuc. soonku wuu kaa jarayaa. sidaa darteed waxaa meesha ka baxaya qofkii naasi ah oo ilowsan. waad hilmaantay, waad cuntay, waad cabtay, soonkaaga iska wado. waa raxmadda ilaah subxaana wa tacaala. naxariista ilaahay waxaa ka mid a haddaad ilowdo soon adoo sooman oo aad cunto oo aad cabto, soonkaaga waa wadanaysaa. qadana lagaama rabo, kafaara gudna lagaama rabo, waxba soonkaaga dhammaystiro, sidaadaad ku soconaysaa. ilaahay baa ku quudiyo ku waraabiyey. laakiin markaad xasuusato ha sii dejinin, waa inaad joojisaa. markaad xusuusato waad istaajinaysaa cunitaanka iyo cabitaanka. xaaladda waa sidaa. waxa soonka jebiya oo ka mid ah baa la yidhi mataga qofka kibirkiisaga keena, jabayaa. hadduu soo dhaafasa dhib male. laysa calaykum, wuxuu tilmaamayaa ilaahay, laysa calaykum junaaxun fiima akhda'tum bih walaakin ma tacamadat quluubukum. taasuu ilaah idin qabsanaya subxaana wa tacaala. nahaar ramadaan waxaa ummadda wiil iyo gabar isqaba ka mamnuuca mucaamalaadka bilooyinka kala dhex mara, waa ka mamnuuc. soonka waa jebinayaa. sidaa darteed ayaa markii hore walaalayaa diinteenna islaamka waxay noqotay diin sadxe oo sahlan. waxay ahaan jirtay markii hore qofka haddii maqribka la adimo, hadduu seexdo u hurdo, soonka waa u xirnaa jiray. haddii cishaa'iga la tukadana, soonka markaasuu bilaaban jiray. naagna looma dhowaanayo, cuntona lama cunayo, sharaabna ma la cabaayo. xaalku markuu meeshaa maraayay, yaa nin maantao dhan intuu beer ka shaqaynaya, reer madiina waa beeraleey,
mawsuu biyo timira uga shaqaynayay uuna soonnaa yuu gurigiisii yimid xaaskiisii buu ku yidhi haye afar ma haysaa wax ma yaalo waa kuu soo daydayaye kastoo sug bay tiri intay boorashkii mishaaryadii ugu maqnayd yuu hurday ilaa maantao dhan buu shaqaynaya miskiinkii markay saa albaabka u soo gashay ayadoo waday tiri khibta wallahi waad hoogtay waa islaamka ugu xihan yahay waa dhammaatay ma cuni karo ceshihii kadib markii la tukadayna qolo dumarkoodii bay u taraaraxeen ayagana waa naftoodii ku qarsanayeen intaa kabacdi baa maalintii markii la gaaray ninkii sidii ku dhacday duurkii markii la gaaray shaqo wadi waay wuu suuxay ilaahay baa ka nasaqay uxilla lakum laylata الصiyaam alrafafu ilaa nisaa'ikum huna libaasun lakum wa antum libaasun lahuna saasaa lagu soo dejiyey ka warrama waa ilaahay naxariistiisa war ilaad ka dhimataan sooma mana dhihin subxaana wa tacaala war ilaa aad ka soxsoxdaan soomana ma dhihin subxaana wa tacaala uxilla lakum waxaa laidiin baneeyey habeenka siyaamka rafat waa gaarid aad dumarkiina gaartaan الرفث إلى نسائكم وأيهن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم إلهي وابا أقاديب حالنا نفيالكين قيانتين فتاب عليكم وإذن كسولاتكم وعفى عنكم وإذن كعفية فالآن هذا صوماها باشروهن وارضاه وتقدموا في نبونا إلى سبحانه وتعالى فصح باتهم مقربك مركز إذا لو أدموا إلا فجرك لك جاره يقول بنانتها فالآن باشروهن هدرتان اتقبوا إلى سبحانه وتعالى مع اللغة تقيا وابتغوا ما كتب الله لكم وحي إلهي إذن كقري كالرسالة مع إلهنا وقر وأولاد ووحي إلهي كوقري وحي تقر كوداوي معها ووحي إلهي كوقري معها وحلا بيا رحمكم بجري لك الضاضي أما أنت لقي إسلامتي وحبوا بجرتي تعالي هذا أمسليان بقبطيها لكم وانت سودب لقول جي معها هدرتان اتقبوا إلهي وابتغوا ما كتب الله لكم وحي إله إذن كقري كالرسالة خذوا واشربوا عنا عبء شرابكين إيو راشنكين حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلا الله بضى ليلين أكل عدادان والصبحة لابد صبح باجة مدنا وكاذبه وصبحون بعضها يجد السين كذا كانوا إجيهاي مدنا وفراء أفق وكب الله طابوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا لبضع كلا عذابات وفجر كأ هدي الليل كالعلبات أما فجر كالعلبات ونشوا ثم أتم الصيام إلى الليل إلا مغرب كلا يجارسون كوضع الله سبحانه وتعالى مركا نحريست إلهي تاسع كمدأة إذا ماشي وحن كأرقنا الجماعة وحكمية وحيابها مفترات كيسون كجريان هذا بعد النهار رمضان أحد كأنه قلموت سميه xaaskiisu u galmoodo soonku uu ka jabaya waa koow maalintaas wax ma cunaayo 3 sax soo haday ahayd aad galmood samayso ilaa maqribka afka wax masaaris mana soonid waxna ma cuni kartid waa labo ta kale maxaa laga rabaa oo kale inuu maalintaas soo qadeeyo maalintaana waa soo gudaysaa tawba waa loo baahan yahay ayda laftigeeda ilaa dambi baad ku dhacday midda kale lagu daray waxay tahay ganaax waa lagu ganaaxayaa oo waxa korkaaga la saaraya kafaara gud waayo nin sooman baatay maxaa xaas ku dhaweeyay nin sooman baatay mad masaajidka timaadid bas quraan akhrisatid oo diinta ilaahay waxyaabo taqana ka baratid xaaladda noocaas waxa la tilmaamayaa marka kafaara gud in korka laga saaro koo waa inaad adoon xoreysa hadii la heli karo hadii la waayo waa inaad soontaa shahrayn mutataabicayn 2 bilood oo xiriir ah 45 maalmood haddaad soontood maalin afarto koobad ka soo bilaabaysaa كوبك كسو بلاديسا إلا دو عذر جرى معاني حتى حنون كو يمادو أو عذر يمادو وموضوع قونئة إلى صونكي واجب كابا ليرقفك يسكعنا يسكعب هدو جرى وموضوع كده واتسيه وذن كرتها لكن حتى عذر دار لآن أفرت واتسو بلاديسا والله بلاد وحرير و60 يوم مالين ولحد المالموت هدي لكري وايانا لحد المساكين أيد راشين سينيسا انتابوا قفكو كبت بالي كرام نبي قال يقول صلى الله عليه وسلم محوي لهلكت يا رسول الله رسولك الله وان هلاك سمين محاكو هلاجيبوا نهي نبيك ناكتي ديبان قد عي أيضا نهار رمضان هي تهي سبحانك يا إلهي ناكتي ديبان جماعي وانا نهار كاقدر ورمضان حطنا وان هلاك سمين محويرين صحابة الدنبيك هلاك بيو أركي جرين ولا ليا أنا شرفت أنه أرقنا وكو قصلنا وجعلان لأن أنا قد دنبي كو جنة تي في إنا لكدو زمان وجعلان لي جرائدد إن الله كسو قرأ هلاك بو أركا وان قبتي وان هلاك سمي رسولك إلى أيو لباتا إيوها بستي ووليا لباطو أركا ولا قسلا مانت ولا فرعسية هي مانتا سيدا درتين أيو يري رسولك معاك وهلاجي حاسكي كان قد عي أيضا رمضان نهار أيتهاي وايه والله حالينا يا بني دينتو علي حاليسا
diinteena maaha diin macangag ah, maaha diin madax adag, maaha diin qofka mar allaala markuu qalad ku dhaco khalaas uu baaba'ay. xal bay keentaa. waa diinta keliya wax xallisa, waa diinta keliya xalkeeda ay uu ballaaran yahay, waasicna uu yahay. waayahee ma heli kartaa qoor aad fakiso? maya wallaahi, tayda un waxaan ahaynon hanan kara malaha. haye ma awoodi kartaa inaad 2 bilood oo xiriira soonto? maya buu dhahay rasuulka ilaahayo, ma kari karo. haye ma awoodi kartaa 60 masaakiina inaad quudiso raashin siisa? maya buu dhahay rasuulka ilaahayo. mashaakil waxna lama haysto, diintiina aad baa loogu dhegan yahay, khayrkii wanaaggaa lagu dadaala. qalad yar markuu ka dhaco rasuulkaa loo soo ordaya sala allahu calayh wasalam. cilaaj baa la raadinaa, daawaa la raadinaa. intaa naaraa laga cabsanayaa, janna la rajaynayaa. intaa saqad allah laga cabsanaa, raadiyaasha ilaah baa la rajaynaya. intaa waxaa laga cabsanayaa inuu ilaahay naco oo jeceyl ilahay baa la raadinaya subxaanahu wa tacaala. wuu iska fadhiistay. nasiib wanaag dembiil baa loo keenay rasuulka ay timri ku jirto oo 60kii maskiin qaadi kartaa. aawakii waay kanaa kii halaagsamay qaadadaa la yidhi sii masaakiinta. markuu sa u qabto kor u qaada buu dhaha yaa rasuul yaa siiya, yaa iiga baahi badan ba. labada laabatay, labada buurood ee madiina ku wareegsan buu yidhi, ahlu beyt gurigeyga iiga baahi badan ma jiro, maba la quraacanba maanta, mana la qabin, maxaan siiyaa buu dhahay dad kale. rasuulka ilaahayo fadaxika الnabiy, rasuulku waa ku qoslay sal allahu alayh wasalam ilaa goosiisii la arkay. waahii orod buu yidhi ciyaalkiisii. marka xaaladdaa waxaa laga fahmayaa meesha axadka ramadaan nahaar inuu is-ilaaliyo, khaasatan dadka arooskooda cusub yahay, khaasatan dhallinyarada. waayo xadiis baa tilmaamay, sida la tilmaamay, nin baa u yimid nebigu yidhi ma dhunkan karaa xaaskayga? uu yidhi haa. ku kalaa yimid oo yidhi ma dhunkan karaa? uu yidhi may. maxaa kana loogu diiday, kana loogu ogolaaday? kani waxaa la yidhi waa shay, waa oday, si kastoo dhunkan laha maaha. kan laakiin waa dhallinyaro, wuu taraaraxayaa. laakiin mar walba walaalayaal, dhallinyaronimo iyo gabow kuma xirna, waxay ku xihan tahay amlig, qofkiinu is-celin karaa isaga. waayo caaisha waxay tidhi nebiga waa ishuminaya wahwa saa'im, waa i dhunkan jiray asagoo sooman, waa igu mubaashiri jiray wahwa saa'im, laakiin amlak buu ahaa, nin hanasho badan irbadiisa iyo shahwaadkiisa iyo dantiisa mid ka adag buu ahaa. ayadoo ammaanaysa rasuulkay tihi ayukum milu, yaa asoo kale noqon kara? war yaa rag ahoo idinka midoo nebi moxamed noqon kara oo kale sala allahu calayh wasalam? maya, ma jiro. aad bay u ammaanaysaa caaisha markay leedahay yaa idinka asagoo kale idinka midoo asoo kale noqon kara. marka waxay ku xihan tahay amlig, qofki inuu ishanan karo. xataa fuqahada gobol ay yidhaahdeen nin shayb oo dhallinyaro ah ayaa laga yaabaa shayq inuu ka daran yahay, odayga inuu ka darnaado oo is-celin waayo, waa suuragal. marka kuma xirno dhallinyaronimo iyo waxee, mar kasta waxay ku xihan tahay. waayo dhallinyaraha waxaa loogu leexiyey waa xilli aad iyo aad ugu dhibaato badan yahay, baahi oona uu qabo. xaaladaasaa markaa loola jeedaa. idan qofka muslimka ah waa inuu sidaa ogaado. nahaar ramadaan ha laga fogaado dumarka. war qof allaala qofka aan is-celin karinow isaga soo bax oo masaajidada imow, intay wax ka samaysanayaan afuradoodii waxooda, si aynan dhibaato markaa kuu asiibin. taas wax loo baahan yahay waayo. intaa wixii ka dambeeya walaalayaal, maalintaa oo dhan marka saa loo soo naado waxaa la gaarayaa xilligii afurka. xilliga afurka marka la gaaro waa inaan ogaano inay tahay xilliga ilaahay ducada u ajiibo, weliba qofka saa'imka ah. maalinta ayaan la moogaani. war waktigaa waxaa lagu haayo il gaar ah, ha lagu feejignaada xilliga noocaasa, gacmaha kor inta loo taago. walaalayaal ilaahay ha la baryo inuu islaamka ilaahay guuleeyo, inuu islaamka ilaahay ka saro u qaado, in ilaahay soonkaaga aqbalo, in badan ilaahay subxaanaه wa tacaala uu kuu naxariisto, khayr iyo wanaag inaad hesho. waa in aad yaa loo baryaa ilaahay subxaanaه wa tacaala. waayo saa'imka ducadiisa xilliga iftaarka ilahay ma soo celiyo subxaanaه wa tacaala. waa lagaa ajiibayaa laa shaka in shaa allah, laakiin la beegsa adigana, la beegsa xilliga noocaas ah. bannaankaasaa la taaganya dukaamada albaabadooda, allahu akbar baa la sugaya, markaasaa lasoo kala cararaya. maya, soo xaro marka hore, ama se aqalkaagii afurkaaga agtiisa fadhi oo in badan la fiirso ducada ilaah subxaanaه wa tacala aad baryayso. ilaahay saa'imka ducadiisa waa ajiibaa. war qofka saa'imkaoo maalintaa iyo wakhtiyadaa ilaahay xoog u bari, ilaahay khayr adduun iyo mid aakhiro weydiiso, gurigaaga inuu ilaahay kuu barakeeyo, carruurtaadii xaaskaaga inuu ilaahay kuu barakeeyo, diinta inuu ilaahay kugu sugo, xaqa iyo wanaagga inuu ilaahay ku waafajiyo, shar iyo shayطaan inuu kaa qabto, kurbada iyo murugta ku haysaa kurbafayda waa ilaahaye inuu ilaahay kurbada kaa qaado bari subxaanaه wa tacaala. waa xilliga iftaarka walaalayaal. wax badan baana dhaafaye, middan haddii ilaahna gaarsiiye aan ka faa'iidaysano. marka xaalka meesha la gaaro waxaad ku afuraysaa timir, waxaad ku afuraysaa biyo, labadu way kuu bannaan tahay. dhibaatadana haysata laakiin shahru ramadaan waxaan u naqaanaa shahru طacaam, bishii طacaamka. dukaamada albaabahooda tag, bur dhammaaday, bariis dhammaaday, saliid dhammaatay, kulli
meeshaa la wada keenayaa haba la iibsada dhibaato ma laha walaalayaal gabadhii la qabay xaaska ahayd tii la dhalay tii qadaamada ahayd ee shaqaynaysay duhurkiisay u galaan kushiinka waxay ka baxaan waa loogu dul adimaa waa lagu dul adimayaa kan dub kan sameey kan waxay kan inta ka bixi kan waxay ilaa salaada maqribka laga aadimo gobolka mid ah cishaa'iga markay tugtaan bay dib ugu laabtaan madbaxa ama kushiinka haba la samaysta dhib ma laha mar allaala marka saa loo soo dhigo axadka xabad timiro qaato wax yaro biyo u cabanaa khalaas saa dhammaadayba ma dhaqaajin karo maxaa miskiinta maanta oo dhan dabka iyo dhibaatada loogu dilahay in yar oo taraawiix lagu tukan karo in yar oo dhabarka inta lagu istaajiyo ayaa habbooneed inteeda kalena qur'aankeeday akhrisato waayo shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan waa bishii qur'aanka waa bishii qur'aanka asnaafta caam oo dhan baa la samaynayaa wax walbaa meesha lasoo dhigayaa min hina ilaa hina baa lasoo dhigayaa maca daalika laba xabbaa laga qaadanayaa waa laga tegey war bisha ayadaa bil iimaan ah bisha waa bil qofka iimaankiisu u sugan yahay in yar haddaad cunto way ku kaafinaysaa ee dumarka yaan la dhibin walaalayaal gabdhaha khadaamooyinka yaan la dhibin gabdhaha la dhalayna yaan la dhibin waxa qiimaha badan waa cibaadada waxa ugu fiican waa cibaadadoo la qabtay wax la cuno ma aha haddii cunitaan iyo cabitaan wax taraayo 11 bilood baan cunaynay 11 bilood oo aan ramadaan ku jirin yaa wax la cunaayay maxaan ka haynaa aan jiro ahayn maxaan ka haynaa aan gaas ahayn maxaan ka haynaa aan keliya xanuun ahayn maxaan ka haynaa aan subax kasta in dhakhtar saf loogu jiro aan ahayn walaalayaal wax kaloo laga haya ma laha idan cibaadada cibaada walaalayaal bisha waa bilcibaado idan sidaa marka la sameeyo qofka muslimkaa waa inuu markuu afuro salaada cishaayigii taraawiixda isku soo diyaariyaa masaajidkaa la imaanaya waa la tukanayaa salaada taraawiixdaa wuxuu yidhi nebiga man qaama ramadaan qofkii istaaga iimaanan waxtisaaban qufira lahu maa taqadama min dembihi waa la dhaafayaa wixii horeeyey dembigiisa ah dumarka salaada taraawiixda masaajidada way imaan karaan oo nebigaa u fasaxay sala allahu calayhi wasalam waxaase fadli badan buri inay aqaladooda isaga tukadaan sababtu waxay tahay fitnadoodaa badan dhibaatadoodaa badan dumarka haddii salaad taraawiix aad imaanaysaan walaalayaal waxaad u imaadaan si anshax iyo asluub iyo akhlaaqay ku dhihan tahay masaajidkan waa masaajidka ugu dhibka badan ay dumarka ku hayaan waxaa loo baahan yahay jalbaab soo qaata waxaa loo baahan yahay catri udugha soo marsanina waxaa loo baahan yahay aqaladiina ku soo weysaysta war intaad soo socotaan si fiican u soo socda masaajidka imaada mar allaala markaad timaadaan waa bil cibaadee cibaadada ku dadaala qur'aan akhrista wallaahi inta badan waxaa laga soo wariyaa inay sameeyaan intay moobeelo soo qaataan moobeelo yaa gadaal safka la istaagayaa oo gadaal safka lagula sheekaysanayaa waa dumarka dusha saaran gobol ka mid ah ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala daacada ilaahay ku dadaala inta badan inta makarofanka la qabsadaa dumarow aamusa war dumarow ilaahay ka cabsada maxaad soo raadsateen ma cibaada mase dembi maxaad soo raadsateen ma wisri mise ajir maxaad soo raadsateen akhlaaq xumo in makarofanka laydinku barbarya miyaa walaalayaal oo laydin dhaho aamusa oo laydin dhaho qur'aan akhrista oo laydin dhaho dega buuq waxaad ku malaysaa suuqa intaqaana meeshaa ku yaalo kale buuqa wax uu dhaama ma laha xaaladooda qaar baa intay saa isaga seexdaan lagu hasful saartaan iyo moobilo ku hadlaan 11 bilood bay moobil ku hadlayo hadduu meel wax taraayo haddii qiimo uu u gaaraayo oo waxyaabo fiican uu noqonaayo 11 bilood bay hadlayeen soo maaha xilli yar oo taraawiix lagu jiro walaalayaal xishmeeya masaajidkana ixtiraama gabdhadaa jira oo dadka aamusiya oo dadka safa xataa looma dhaga nugla xataa la maqli maayo aaway ixtiraamkii aaway kala dambayntii aaway muslimnimadii aaway khayrkii aaway taraawiixdii aaway wixii ilaahay laga raadinaya subxaana wa tacaala nana siidaa bay leedaha mid gobol ka mid a nana siidaa horaan loo bixin karin gadaal baan loo soo celin karin aamus baan la dhihi karin safka soo gal baan la dhihi karin maaha sida suuqoo kale meesha waa beyt ilaahi subxaana wa tacaala ramadaan baa lagu sii jiraa haddana waxaa loo taagaya waa taraawiix ama waa qiyaam waa tahajud walaalayaal marka waa shay muhiim ah oo loo baahan yahay caaisha radia allahu tacaala canha xilli ay noolad miyaa dhow waa maya waxay tiri wallaahi nebi moxamed hadduu soo gaari lahaa dumarka maanta waxay keeneen masaajidada waa ka mamnuuci lahaa sala allahu calayhi wasalam oo dumar taabiciyaad ah walaalayaal fitan baad ku jirtaan war gabdhihii islaamka matalay baad tihiin jalbaab baad wadataan khayrkii baad hugan tihiin waxaad soo aadeen beyt ilaa subxaana wa tacaala kalaad ma aadan aadin meel lagu tumanayo ma aadin beydkii ilaahay baad dhex fadhisaan in yar baa idiin dhiman khayr badan ayaad ku dhex jirtaan ood ku sugan tihiine intaa yariisteed dhiman ramadaankan ku dara in sha allahu tacaala
ha noqdo ramadaankii ugu qiimaha badnaa aad soonto, ha noqdo oo niyeysan ramadaankii kuugu dambaynin inuu markaa yahay, ramadaanna kaaga dambaynin, ka kalena aad qabuur aadayso. haddaad sii noolaatana falilahi alxamdu sii wad soonka, haddaad dhimatana marka horba diyaar baad ahayd. walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun, ha dhimanina ilaa idinkoo muslimiin ah maahane. intaa wixii ka dambeeya walaalayaal, waxaa la gaarayaa habeenkii caadi sideeda loo seexanayaa, maalintii waajibaadkii la qabsan jiray, salaadihii kulli waa sidoodii, wax isbedelay ma laha. waxaa lagaa rabaa akhlaaq fiican iyo in wixii waajibkaa ama xalaasha ku ahaa aad markaa ka soo naato. intaa wixii ka dambeeya ramadaanka suu u sii socdo waxaa la gaarayaa 10 dambe, 10ka ugu dambeeya. ramadaankii horay ahayd wakhtiga aan meeshaa fadhinay, caawa meeshaanaan fadhinaa, ma idinla tahay 2 maalmood inay ka soo wareegatay? jawaabtu waa maya. cumrigeena waa saas walaalayaal, israac waa degdegaya, saasuu u socdaa. wallaahi ramadaantii horaan meeshaa ka hadlaynay, ramadaantii kalaa noo timid, waxaan u malaynaa ka lamxin bilbasar, ilbiriqsi oo kale inay markaa tahay. saasuu malakumoodku noogu dul wareegayaa, marka saasuu malakumoodku noogu dul socdaa. idan hala dadaalo, ilahina halaga baqo subxaanahu watacaala. 10ka dambe waa 10ka loogu rajo badan yahay in laga helo laylaة اlqadri. laylaة اlqadri qof allaala qofkii nasiib leh buu ilahay waafajiya subxaanaه wa tacaala. yaa ka nasiib badan qof laylaة اlqadri la waafajiyey? nin baa habeen aad u faraxsanaa oo dadka sharaab siinaayey, oo qof kastoo meesha soo mara sharaab siinaayey. war maxaad ku faraxday baa la yidhi, bakhtiyaa nasiib maraykanka laga samaynaya wuu ku guulaystay, krinkaaruu helay. wax kale ma jiro walaalayaal, subxaanaka ya ilaahay. heerkaasaan maraynaa maanta. maxaa loo baahanyahay marka? krinkaar buu ku farxay. laylaة اlqadri qofka waafaqa ka warrama. laylaة اlqadri maxaad u malaynaysaa qofkii ilaahay waafajiyo? laylaة اlqadri khayru min 1000 shahr. 1000 bilood bay ka khayr badan tahay. cumri aanan gaari lahayn, cibaado aan ku qaban lahayn baan ku qabanaynaa halka habeen. waxay ku ta'wiiliyaan 83 sano ama wax u dhow. ka waran hal habeen cibaado aad waafaqdo. inaa anzalnaahu fii laylaة اlqadri wamaa adraaka maa laylaة اlqadri. laylaة اlqadri khayru min 1000 shahr. 1000 bilood buu ka khayr badan yahay. waayo tanazalu اlmalaa'ika, malaa'ig baa soo degtaa, ruux baa soo deg, waa malakuljibriil. looma kala harin habeenka. jibriil hadduu ku imaanayaa dhulka, malaa'igtii way soo degayaan. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر bay la soo degayaan. سلاam hiya. habeenkaa bay nabadgelyo ahaatay. nin kasta oo taagan way salaamayaan, guri kasta oo lagu jiro way imaanayaan, waxay ugu bishaaraynayaan tahniyad iyo khayr. kii jiifay, kii qayilay waa la ag marayaa, kii sigaarka cabay waa la ag marayaa, kii naagta la fadhi waa la ag marayaa. waxaasoo dhan waa la ag marayaa. laakiin qof kastoo khayr iyo cibaado iyo wanaag ku taagan, man qaama laylaة اlqadri, qofkii istaaga iimaanan واxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dembi. wixii tegey dembigiisa la cafiyaa buu yidhi rasuulka salى الlahu عalayه wasalam. idan habeenkaa waa in la raadiyaa. 10ka ugu dambeeya laga helaa, khaasatan tirooyinka isdheer. ramadaanka nebiga waa dadaali jiray salى الlahu عalayه wasalam. 10ka dambena wuxuu u dadaali jiray si uusan u dadaalin intii hore. waayo waxaa laga yaabaa in laga helo laylaة اlqadri. laylaة اlqadrigaa loo qasdaa oo la raadiyaa. saxaabada in badan bay riyo ku arkeen. waan arkaa buu yidhi riyadiina inay iswaafaqday 10ka dambe ama tirooyinka isdheer. ee qof kasta oo laylaة اlqadri raba inuu raadiyo ha ku raadiyo 10ka dambe, khaasatan tirooyinka isdheer. meeshaa ka raadiyo. xataa maalin mar baa loo waxyooday rasuulka oo la yidhi waa habeen hebel ee u sheeg ummadda. markuu soo galay masaajidku arkay 2 nin oo meesha ku doodaysa. dooda xumaanta ay leedahay walaalayaal. 2 ninaa murmaysay, saasuu u dul istaagay. waaba la hilmaansiiyey buu dhahay salى الlahu عalayه wasalam. inay khayr idinkugu jirtaa laga yaabaa, ee ka raadiya 10ka dambe walow tirooyinka isdheer. waana khayr loogu jirtaaye haddii la dhihi lahaa 27 bay ku jirtaa oo si qaasa loo sheegi lahaa 27 qofkay dhaafto ma dadaali lahayn. wuxuu dhihi lahaa kollay ku dhaaftaye hadna seexo. waayo 21 haddaad dadaali weyso 23 baa dadaali. waa rajo, waa leedahay amaa laga helaa. 25 27 amay ku jirtaa, 29 amay ku jirtaa. saasaa marka loogu talagalay. khayr baa idinkugu jiree saa ugu raadiya buu dhahay nebiga. waxaana loogu rajo badan yahay baa lihi waa 27ka. say noqoto habeenkaa walaalayaal hala dadaalo. habeenkaa 10ka dambe macawistuu xihan jiray rasuulka sal alla alayh wasalam. wajadda washadda almi'zar, macawistiisuu adkaysan jiray. haddii aad alaab qaadayso marka hore guntigaad xirataa, suunkaad adkaysataa. macwis haddaad wadato waad xoojisaa, kadib waad kor u qaadaysaa. maxaad diidaysaa inta aad waddo inay kaa baxsato soo maaha? waad adkaynaysaa markaa. sidaa darteed rasuulku inuu hawl gelaayo
inuu shaqo adag gelayo tilmaamayaa markaasuu guntigiisa xihan jiray sala allahu calayhi wasalam. qole waxay ku fasireen waa kinaaya, waa jimaacu ka fogaan jiray. tobanka dambe waa la iska daayaa qofkii kari karaa, laakiin qasab ma aha. xaaladda noocaasay tilmaamaysaa marka in tobanka si fiican loo raadiyey. caaisha rasuulka u timid waxay tihi yaa rasuul allah, haddaad ogaada ayu leyl ay habeen ay tahay laylatulqadri maxaan dhahaa, maxaan ku ducaystaa rasuulka ilaahayow? caqliga fiiri, caqli waxaa naqaanaa lagu bayac mushtara gabdhaheeda. mid kasta waa ganacsato, mid kasta diyaarad bay raacaysaa, mid kasta waxay soo dejinaysaa waxaysan ragga soo dejin jirin, laakiin ma kari karaan wixii cibaadahoo diin ah. caaisha fiiriya, ayu leyla ee aan ogaado laylatulqadri maxaan dhahaa? rasuulku muxuu ugu jawaabay, quulii allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii. waxaad dhahdaa ilaahayow allaahuma inaka cafuwun, alla cafin badan baa tahay, cafintana waad jeceshahay, iska keey cafi. war haddii ilaahay ku cafiye maxaa kuu dhiman oo kaa maqan? war hadduu ilaahay ku dhaho addoontaydii waa ku cafiyey, waxa kaleed raadinaysa muxuu yahay? waxa kale aad dalbayso cafin ilaah markaad heshay muxuu yahay subxaana wa tacaala? war addoonkaygiiyo waan ku cafiyey hadduu ilaahay ku dhaho waxa kaloo kaa maqan maxay yihiin? abubakar ummadda nebiga asagaa ugu iimaan badnaa. nebiguu u yimid markaasuu dhaha yaa rasuul allah, waxaad i bartaa duco aan ku ducaysta fii salaatii, salaadayda gudaheeda. muxuu yidhi nebiga? waxaad dhahdaa abubakaro, allaahumma inii dalamtu nafsii dulman kaiira. abubakar haddii saarir xaggee ku jirnaa walaalayaal? abubakar radia allahu tacaala canhu id yaquulu lisaaxibihi laa taxsan ina allaha macanaa. ninkii qur'aanka ilaahay uu ku xusay nebi moxamed inuu saaxiibkii yahay, yaa la yidhi dheh allaahumma inii dalamtu nafsii, weliba dulmi ma ahee dulman kaiiran, riwaayad kale kabiiran, dulmi badan ayaan dulmiyey. walaa yakfiru dunuuba ilaa anta faqfir lii makfirata min cindika warxamnii inaka anta algafuur raxiim. waa abubakr radia allahu tacaala canhu. idan waxaasoo dhan way naga qarsoon yihiin, waxaasoo dhan ma haysan. soon waxaan haysanaa oo laga yaabo xataa suxuurta in laga gaarsiiyey ayadoo salaad subax la adimay amase la tukaday. soonkaasaan wadanaa. soon waxaan wadanaa qiimo aan lahayn walaalayaal. waxaan wadanaa soon fisqi iyo macaasi iyo xumaan iyo beer iyo qishi qiyaano lagu dhex samaynaayo. soonkeena waa bidaaca musjaad, waa badeeco liidata. rabbi inuu naga aqbalo maahane, wallahi kii la aqbalaayo ma aha. rabbi fadligiisa inuu nooga aqbalo maahane, dulqaadkiisuu nooga aqbalo maahane, ma wadana walaal soonkii ilaahay subxaana wa tacaala raali gelinayay. laakiin fadligiisiiyo naxariistiisa yaa markaa waasica subxaana wa tacaala. caaisha saasay dheh baa la yidhi, gurigeeda faynus ma yaalo, waa kow. firaash ma yaalo ay goglato, waa labo. 3 bil baa laba intay u dhammaatay tii saddexaad ii dhalatay bay tiri gurigayga aan dab lagu shidin, aanana aalin wax qof beer leh uu cuno radia allahu tacaala canha. lama dhihin beriis isiidha ilaahayow, lama dhihin filla ii dhisdha ilaahayow, lama dhihin dahab aan waxyaabo aroosaha ku taga ii samay dheh. allaahumma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii. cafinta ilaahay bay raadinayeen saan shayطaanka u raadinayno jidkiisa, naxariista allay raadinayeen saan adduunka u raadinayno, aakhiray raadinayeen saan adduunkii waxyaabihiisa kale u raadinayno. xataa haddaan xalaal ku raadinayn way fiicnaan lahayd. xalaal iyo xaaraan balmada loo kala aabayeel, say gacanteena ku soo gashaa, see loo taajiraa, see wax loo helaa, wax laga haayana ma laha. ninka saas ee ugu saray haddaad maanta u tagto ood konton aad u baahato 10 kun inuu kuu amaahiyo, gacantuu kaa taagaya. asagaa ugu sarreeya, asaa ugu horeeya, asaa waxa u ah waa antoo dhan buu raadiyaa. salaad uma tukado, uma soomo, wanaag uma sameeyo, habeenkao dhan saab u soo jeedaa sidii loo heli lahaa. aaway haddana gacan laguma dhigin. aaway xaggee ka baxday sida loo leeyahay yaa qabrigana laga geynaya runtii xaqiiqdii. marka ilahay ha loo soo laabto subxaana wa tacaala, daacada ilaahayna ha lagu dadaalo, ilaahay amarkiisana kor ha loo qaado. intaa waxay ka dambeeya walaalayaal ramadaanka markuu saas xaaladiisa u noqdo gebageba ayuu usii dhammaanayaa. marka habeenka ugu dambeeya waa habeenka ilaahay uu ugu badan yahay inuu naar ummadda ka xoreeyo subxaana wa tacaala. ka waran qofka aan ku jirin liiska ilaahay ee dadka naarta laga xoreeyey. qofkii laga hoojiyey faqad xurim, waa la hoojiyey buu dhahay nabiga sala allahu calayhi wasalam. war haddii ramadaan 15 gaaro weli aana loo dembi dhaafin ka warrama, ummaddii loo wada cafinayo naarta laga xoraynaayo, weli aan gelin liiska ilaahay dadka naartuu ka xorayn lahaa. waa habeenkii ugu dambeeyey gebageba ahaa ee ugu dambeeyey oo naarta in badan ilaah ka xoraynaayo oon weli aan ku jirin. ka waran haddana haddii habeenka ramadaanka dhammaado anagoo saasna loogugu dembi dhaafin, kan dambana dad gaaraya aan markaa ku qornayn. waa khasaaro.
سادرت هذيك احنا سيدها لوجو دلاله اذا رمضان كفضلgiisa qiimihiisa waa sida qofka muslimkan waa inuu dadaala waa in amaamirta ilaahay la badiya khayrka lagu dadaala ramadaanka markuu dhamaado fadli ilaahay waxana lagu waajibiyaa ama lagu suneeyay 6 maalmood oo shawaal ah ila markaas soomo 6 maalmood ee shawaalka ah marka la soomo soddonkiina aan isku darsano waa 360 maalmood bay u dhignaysaa waa hal sano oo kaamil ah halkii xasana waa 10 saadarteed soddonkii waxay noqonaysaa 300 6 maalmood 60 bay noqonaysaa 360 maalmood qofkii ramadaan sooma shawaal 6 raacsiya wuxuu la mid yahay qof sanadkii oo dhan soomay ayuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam xaalku waa sida ramadaanka marka la gaaro masaajidda waa la soo buuxiyaa dhalinyarada macawisay soo baxsadaan maalinta ramadaanka ugu dambayna waa la xareeyaa saas hayeelina saad u soo gashan ha noqoto insha Allah ta'ala khayrkii wanaagga lagu dadaalo ila xaqan ka barya inuu xaqana waafajiyo ila waxaan ka barya ramadaanka inuu nagaarsiiyo shacbaankeena iyo rajabkeen ilaahay ha noo barakeeyo ramadaan ilaahay ha nagaarsiiyo subhanahu wa ta'ala ummadaha naarta laga xoreynayana ilaahay ha nagu daro subhanahu wa ta'ala rabbigan waxaan ka baryaynaa naarka xoreyn waxaan raadinaynaa dambiga nagu batay ilaahu dambigana noo dhaaf ilaahu dambigana noo cafi ilaahay naarta naga xoreey ramadaanka iyo wanaagga soo socda fadligiisa inta xanuunsan ilaahay عافما كام الله سيو انتي مرغيسنا مرغت الله كقاضو انتي كربيسن إلهي كربدها كفيل سبحانه وتعالى إله وحن كبرينا انتي عبادة كعلصنا إنه عبادة أصخرة عبادة أفضل بيو إله وحن كبرينا سبحانه وتعالى رمضان كينو نقارسيو كسر هدانا نقارنا إلهي نحديث تيسا أيها رجيننا سبحانه وتعالى وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته